waxaan maanta halkan ku soo dhaweynaynaa marti sharaftaas ka timi Hargeysa Berbera Burco oo ah madaxweyntii ama beelweyntii madaxdii salaadiintii boqoradii beesha Habarawal walaalaheena nagu soo booqday maanta Cergaabo iyo Buuraleyda Daalo Hareed ilaa Maydh waxaan ku soo dhaweynaynaa Maydh waxaan ku soo dhaweynaynaa Buuraleyda Daalo Hareed Gaacid iyo dhulkii dahabka waliba waxaanu mahad ka celinaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uga mahadnaqaynaa dekadii uu noo ansixiyay maalintii dhaweyd aanu warkeedii dhamaaday waxaanu doonaynaa inuu noogu xejiyo wadada isku xidha dekada iyo magaalada Cergaabo aan halka ku soo migle oo miisaan leh oo sharaf leh oo maamuus leh idin ku soo dhaweynaynaa waftiga balaaran inooga yimi galbeed uu hogaaminayo Suldaan Ismaaciil Suldaan Cabdiraxmaan baryahan ba ku sugnaa gobolka maantana goostay inay soo booqdaan oo soo arkaan uga tabca iyo shaqada ka socota si ay kelmadooda ay uga geystaan iyadoo halkan aan uga mahad celinayo beelweynta Jibriil Saalax sida sharafta leh halkan ugu soo dhaweysay waxaan u mahadnaqayaa deegaanka jiidan jooga oo xil iska saaray samaynta wadada soo dhaweynta waftiga horumarka iyo walaaloodii inay soo dhaweeyaan meeshaan joognaa waa Hareed wadada tabcaynu tagnay gacanta lagu hayo sida la idin sheegay dadka shacbiga gacanta ku haya wadadani waxa maqasheen badan naga maqasheen Ardal Ashdaad annagoo leh Ardal Ashdaadka rasmiga ah waa Maydh odayaashii oo dhan meesha ku aasayeen waa jiidan ilaahay Jabuuti ka soo jeedo oo Ciise agteenu ku aasay ilaahay waxaan ugu mahadnaqaynaa ogolaanshaha dawladdeena ay soo deysay dekadii la bilaabo dhaqsana waa u filaynaa laakiin waxaan u sheegayaa waqtiga sharafta leh haddaan wadadu dhammaan dekada xaga loo maraya mahadnaq weyn oo intii aanu joognay Cergaabo iyo ilaa maanta hajaminoo hadhicdaana la hayay oo nala casuumayay oo nala marti qaadayay oo yani haddii wixii naga xumaadaa ay beesha ayakana ka xumaanaysay aad baan ugu mahadnaqayaa tan maanta reerka halkan degan iyo bulshadaba iyo tuulooyinkan ku xeeranna waxaan leeyahay maanta martiqaadka aad noo samayseen ilaah baa mahadle waa idinku mahadnaqaynaa mahadnaqayagu mid ereya aanu ku soo koobi karayna maaha mid aanu qoraal ku sheegi karayna maaha waa mid farxadayada iyo reynreyntayada ka muuqata aad iyo aad iyo aad baan idinkaga mahadnaqaynaa deegaanka iyadoon awood dawladeed iyo awood dhaqaale iyo awood hay-adeed midna aanay gacan ka siinin inay iskood isku xilqaamaan oo dadka halkaa maanta taagani ay yihiin dadkii kuuliga ka ahaa waddada wadda aad naga leedihiin maaha waa wadda aynu wada leenahay waxaanu baaq u diraynaa xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ugu horeeyo oo wasiirka gaadiidka hay'adda wadooyinka ku xigaan waxaanu leenahay mudane madaxweyne wadada halkan taala waa wada muhiima waa wada aynu u baahannahay codsanaynaa in ummadda kale ee reer Soomaaliland ee maanta maqlaysaana inay ku soo deeqaan wadada wixii lagu tiraa ninkii qalab haya ninkii raashin haya ninkii shidaal haya iyo ninkii lacag hayaaba gudidaana waxaan ugu ducaynaynaa in Ilaahay ku guuleeyo ana ugu horeynayo waxaan ku deeqay $500 waa wadadii badda loo marayay wadii dekada Maydh loo marayay wadadaana waxaan leeyahay xukuumadda Soomaaliland waxa la waxay ka qaban kartaa ka qabto ha ka caawiso wadadaasi waxaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waa in wadadaasi waxa weeyaan ay xukuumaddu gacan xoog leh ka qaadataa Cabdiraxmaan Axmed Ilsar